qaladkii marka xal meesha ka dhacay waxa koow ka ahaa gabadha namiin bay u tartamaysay top 20 ku hartay haddii masharafeed ay judgeska ama dadka wax xukumaya xaakimiinta ay leeyihiin bay ku soo baxday gabadhan Mozambique u tartamaysay iska daa Ingiriisi wax u dhow ma aqoon Portugiisi ku hadlaysay xataa turjumaana loo baahay kaniisad ay taxsi ka socotaa inta u daadanay oo tartanka caadiga ah Miss Africa la yaqaan kan u ahaa kan inaan ka qayb galnay ahayd meel qaldan aan galnay السلام الله عليكم أصحابتي سونو وناكسن مال هبين دور عصر مغرب عشق طلبوا انتها وناكسن maantay waxaan ku wari fashilo waaweyn iyo faarar waaweyn iyo hawlo badan aan maanta idin wada arbacada hadii aan cusbitaay fadlan jalan ku jalanka ku soo dhow gacmo furan commentiga maanta wax kale yaan ku arkin FIFA Aisha Queen of Africa wax kale yaan ku arkin markay gabadhaas muuqaalkan uu gaaro commentiga waxaan rabaa inay ku laab qabowsto dadkeed inay garab taageen aan arko FIFA gabdhaheena Soomaaliyeed Aisha Queen of Africa wax kale yaan loo soo qorin leeytan barnaamijka noo saar waa kiilmaamina horta waxaan rabaa inta wax dhan u gudo galin dumarkeena Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dhoomaasinidiin allihii idin uumay idin khalqay in u mahad celino waay macnaha xataa meesha aan ku harnay iyadoo corruption badan ay jireen oo hadda aan soo wado aan fashil rabo meesha aan ku harnay South Africa 54 dal ah soo macnaha top 6 ka kumidan harin oo top 10 ka nama keenin 54 dal soo top 10 ka nama keenin top 6 ka waan ku harnay mahadsanidin ilaahay idin khalqay waa mar walba u mahad celinayna sharaf iyo karaamo gabdho waan la dhashan qurux iyo qaayale waayahay taas waa mahad celinta aan u soo noqdo marka horta intaan u gudo gelin xalay fiidkiya intii linkiina loo isku sheer gareeyay Soomaalidii oo liirbaasha hadday bilaabatay akriisad taxsi ka socoto oo gaaladii barooranayaan baroordi u socoto aan ku qaban wadaca FIFA Soomaaliya gaaladu waxay leeyihiin kuwan Cristiano aan jirin kuwan yaa balmiyay annaga miir ma qabno qof annaga naga mid ah haduu wax u tartamaya adduunka haduu wax la qaybsanayo miir ma qabno macnaha albaab xiran iyo reer qadeenay iyo qolo taxsi u taal iyo kaniisada u soo galina daarno aan isaga dhax qeyroonina mar dambe ninkii intuu yaabay welcome to the jar jagu soo dhawaada kaniisada akabtay maaragtay u gambi u gooy ka baxa war xagee soo gal war xagee joogna aan u soo noqdo mar corruptionada xal dhacay horta qodobka ugu la yaabka badan ee ilaa iyo hadeer dadka maskaxdooda ka dhex guuxaya waxay tahay gabadha Namibia u tartamaysay gabadha dharka madow ee caarada dharka caarado kala qabta waxay ku hartay top 20 ga hadii masharafeed uu judgeska uu leeyahay waxa la yiri codka iyo tobnaada jiro waa daawanaysan inta daawanaysay codka koow iyo tobnaad judgeska qof ku soo dari doona la yiri asaa mikrofoonka loo geeyay naagta dharka goomiyada waxay tiri oo judges kamidada waxay tiri Mrs Namibia su'aasha isweydiinta mudana marka waxay tahay top 20 ga ku hartay adiga already waa dhimatay judgeska hadda masharafeed kugu soo nooleeyay waa soo noolaatay 12 ku noqotay 10kii ka guuleystay ee gudbay ilaa adiga ku yaara ku jirtay alla si kala saaraya la yiri adiga walaalo meeshaas pointiga ku heli kartid oo top 6 ka ku sii gudbi kartid oo dadkii top 10 ka u gudbay adiga marka hareysay gudbay ay ku hari karaan ii sheegi kartaa public vote hadii noqoto waa laga badan yahay top 10 kana gudbaa ka badan adiga ku harata qurux hadii noqoto top 10 ki gudbaa ka badan adiga ku harata qiimeyn iyo structure iyo akhlaaq iyo asluub hadii loo top 10 ki gudbaa ka badan adiga ku harata hadii masharafeeda ku soo noolaatay top 10 ki shan la reebay qoftii hadii masharafeed ku soo noolaatay aw top 6 ku jirtabo wax meel kale ay ka tusaa waliga ma qashay doorashooyinka caalamka iyo doorashooyinka kubadda cagta iyo good talentiyada iyo qof intuu haray ay judgeski dhamaa ay wax xukumayay cadaalad meeshu fadhiyay ay dheemay anaga qofkaana wadanaa hanagu la daro wareega saddexda madaxweynaha marka loo tartamay haduu haro gudiga doorashooyinka hadii aan ka waran saddexda musharax oo gudbay wallahi musharax hebel waxa waaye waa ku soo darnay anaga idinkii gudiga hadaa qofkaan wadataan qofkaan tartanka ku guuleystay inta kale iska baxaan waayebe dhalinyaro kale waxa u jeeda dhahayo xagga ma taqaanaa luuqadda gabadheena ciishay wax ka jira malahan gabadh aan Mozambique u tartamaysay af Portugiis ku hadashay su'aalaha markii la isweydiinayay way fahmi weeday xataa waxay ku jawaabtay garan weeday absaali yiri war qof Portugiis ku hadla meesha ma joogaa markii dambe waxa la yiri wax allaali wixii awoodo tabartaada ku jawaab luuqad Ingiriis ma u bilowneen gabadheena anaga meesha intay soo gashay oo ku xarakeysay ku amideeda kala wallahi billahi horta xalay
tartan keen ahayn aan galnay anaga tartankii caadiga East Africa alaabtaan ee gabadheena dadkaani wax la qaybsan lahayd kii caadiga ahaa gaagaabay waaye kan kii caadiga ahaa ee weynaaye officialka ahaa alaabtaan dadkaan waaye dadkaani gabdheena wax la qaybsan lahayn xal meel qaldan aan galnay qaar kale waxay lahaayeen gabadha xogaha maadaama dawlad ka taxadirto iyo in jirkeeda in la ilaaliyo oo xogaha hilib yira Mrs Congo fiiri walaalkay Mrs Congo geeska fiiri geeska Mrs Congo 200 jeer hilib hadii la dhaho ka baalkaysneed toobsigiskay ku jirtay war meeshaas aniga ma sheegin in la dhaho naagaas kulli xala dabada u wada qaawisnaaye gabadhiina dabadeeda maxaa loo arki waayay in la dhaho u asturneed ma sheegin taas laakiin se gabadheena xala meeshaas wax ay ku harto haba yaraatay ma jirto aniga gabadha guuleysatay waxaan leeyahay hambaliyo way istaahishaa way u qalantaa waxa waaye tartan qof dumara ay ku guuleysatay waxa waaye abuurista ilaa inaan wax ka sheegno ma wanaagsana laakiin se gabadheena ififaalo ay ku hari karto anaga meeshaas xalay ma ka arkeenin ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dhaho public vote hadii noqoto way ku guuleysatay waa sababta markii toobtan kala tirinayay public vote wax loo xukumayay sababta Soomaaliya kow loogu dhawaaqay codka public ama codka bulshada Afrika ayada qaadatay taas waa ku dagaalanteen sharaf iyo karaama leedin Allah idin sharfo horta anaga faarax hadaan nahay xaaladeena ama situationkeena horta noocaan u ahaa شواطر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بروحها يا جوجا يا جمالك يا قروح ذاتي ما شاء الله ما شاء الله عايشة في الصوماليا ما شاء الله بروحها واحد كحرنك هاي وروا سعدة ورعايش عاوة كدورتي ما شاء الله ما شاء الله بروحها واحد كحرنك يبي جوانا دوتين نوكينين نعلى شيء داكين فيها والله بالله تعالى وكروع طي بلاي كل دوا من فلهاتي معناها بادريمي ابو ضيح سو خديا ودخ موقد عمل ودخ موقنيس والله ني wax ani bas waa tartanka kuwa xataa Yurub ka dhacay gabdheena lagu daran taaganay arabo midada kala xaragada YouTube xataa tababar ma la fiiriyaa dawlad waxa way oo gabdhahan gacanta ku haynayso oo actionada male YouTube kooda waxooday fiirsanayaan asaas ay wali ku soo galayaan ugu darnada marka idin wadaa teamka doorashada qabanaya gaagaabeeda ah soo Instagram kooda 38 kun wataan gabadheenana 20 kun wadataa degdeg 100 kun loogu shubo waaba laga saameyn iyo shacab tartanka waana ka saameyn badan tahay waana ka shacbiyad badan tahay hadaan ku dhowsay ku yeelay ma ku xumeeyay sanadka daba inaan kuwaas tartankaas inaan ka qayb gali doono su'aalaha ka taaganay laakiin sanadka daba markii soo wacanayaan waxaan rabaa markii soo wacayaan Aisha waxaan rabaa in la dhaho inuu ogyihiin gabar ka saameyn badan ka shacbiyad badan janalka Afrika dhan macnaha doo u qabanayay quruxda janal ka saameyn badan oo kas mataqaana shacbiyad badan oo ka bulsho badan iyadoo ah inay soo wacaan rabaa hadaa xarfaantiin gabadhaas 100 kun loogu shubo ayaga 38 kun mootaano gabadhan 20 kun mooto horta caaway waxa waa hal dhaafsiyo abo qof ka shacbiyad badan oo ka mataqaana saameyn badan oo shacbiyada ay wadatay adigoo Afrika waxa wax u qabanayo iyo ayadoo Soomaaliya ka shacbiyad badan kabtaas way xishoonayaan wallahi sanka dam ayagoo xishoonaya soo wactamayaan wallahi إيفان بيانا كدولا إيفان وجيبه هذا الله isku soo wado umada Soomaaliyeed waa dagaalanteen gabadhaas wallahi wax loola ma harin wax allaali wax loola harin ma jirin hiir haday noqoto haday noqoto qarash haday noqoto wax walbo YouTube ki xataa xal meelihii laga daawanayay macnaha calanka Soomaaliya haystay horta 200 oo jeer Aisha qalbigeedu waa qabow yahay hurdo macaan jiftaa shacabkiisa u heeliyeen hurdo macaan jiftaa macnaha wadanka markay ku soo noqotana gabadhaas ha loo kala kiciyo xafladaha loo qabto madaxda loo geeyo hal la dareensiyo geesiyad garab weeday oo meel dhexe intee ku dhacday waxa way meel quruxda si kale looga yaqaan intee ku dhacday ma taqaanaa tartantay oo kaalinta top 6 tagtay oo aan qoosanin oo soo dagaalantay iyadoo ah gabadhaas si kale leeyahay loo soo dhaweeyay waayahay barnaamijkii maanta san ku soo gabagaynaya hambaliyaan leh gabdhaha Soomaaliyeed kulligiin waa guuleysteen waa idin ka qabnaa waa meesha ugu matashin barnaamijka quruxda waa ga diyaar andukum qurux badan leh subscribe jaw